wafdigan isimada uu hogaaminay garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool wiilwaal kana soo kictay magaalada Jigjiga dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa waxaa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Qardho iyadoo duleedka magaalada ay uga hortageen boqor Burhaan boqor Muuse qaar ka mid ah isimadii hore ugu sugan magaalada Qardho maamulka gobolka Karkaar kan degmada Qardho iyo bulshada magaalada Qardho boqor Burhaan boqor Muuse isimadii ka qayb qaatay soo dhaweynta wafdigan maamulka gobolka kan degmada ayaa goobta soo dhaweynta wafdigan uga mahadceliyay safarkii dheer ay u soo galeen casuumaadii boqor Burhaan u fidiyay isimada dhaqanka Soomaalida waxaa farxad noo amaanta in ala ku soo dhaweynayno garaad kulmiye garaad maxamuud iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo inoo ka yimid dowlad deegaanka Soomaaliya dowlad deegaanka Itoobiya aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inay halkan ugu soo gaaraan oo runtii muddo aan sugayn halkan waftiga ballaaran oo inoo ka yimid ismaamulka deegaanka ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyagoo ku yimid ballanqaadkii boqor Burhaan boqor Muuse uu fidiyay isimada Soomaalida meel kasta ay joogaan aad iyo aad baan wax lagu mahadcelinayaa waftiga garaadka hogaaminayay sidoo kale ku hadlaya afkayga iyo afka gobolka Karkaar dhammaan shacab weynaha waxay idin leeyihiin soo dhawaada annaga dhowr maalmood ka hor ayaa halkan sidii noogu soo dhaweey inagoo isamadii jubbada hoose matalay haddana maanta inaga oo reer Qardho noqonay oo boqorka la socono ayaan soo dhaweynaynaa mar kale garaad kulmiye iyo madaxda la socota ugaasada kale waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa annagoo tixgelinayna boqorkiina na hogaaminayo waxaan ku soo dhaweynaynaa garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal iyo waftiga uu wato oo nooga yimid dowlad deegaanka Itoobiya waxaan halka u taaganahay oo aan ku soo dhaweynaynaa garaadka guud maxaan ku yiraahdaa dowlad deegaanka garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool ku soo dhawow gurigaagii Qardhaan kugu soo dhaweynaynaa aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay iyadoo uu hogaaminayo boqorka inaan ku soo dhaweyno goobta tan garaad kulmiye inaan ku soo dhawaano iyo waftigiisaba aad iyo aad baanu garaad adiga iyo waftigaagaba u soo dhaweynaynaa waa idin soo dhaweynayaa garaad adiga iyo waftigaaga ka yimid dowlad deegaanka Soomaaliyeed Itoobiya aad iyo aad baan idinku soo dhaweynaa meeshan quruxda badan ee barwaaqada ah ee Qardho garaad waxaan leenahay soo dhawow waxa timi magaaladaadii waxa timi deegaankaagii garaadka iyo waftiga oo hogaaminayo waxay ka soo kici timeen magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya aad iyo aad garaadka iyo waftigiisaba waxaan leenahay safarka dheer aad soo madheen oo maslaxada caamka ah aad u soo madheen inaad taladiina ka dhiibataan aad iyo aad baan idinka mahadcelinaynaa ilaahay khayr idin jisayo waxaan kaloo u mahadcelinayaa garaad jaamac garaad Ismaaciil iyo garaad Saleebaan Faysal Abshir garaad oo iyaguna kaga hortagay ilaa iyo Laascaano iyo meel ka shishaysa garaadka si ay u soo dhaweeyaan oo aanu wakiilanay inay halka ku soo dhaweeyaan way ahayd dhamaantay inaanu halka iyo meel ka fog baan tagno garaad kulmiye garaad maxamed garaad dool garaad wiilwaal ayaa dhankiisa ka mahadceliyay soo dhaweynta ballaaran ee Qardho loogu sameeyay isagoo sidoo kale u mahadceliyay isimadii iyo shacabkii kale ee ku sugnaa magaalooyinkii safarka ku soo maray ee sida weyn u soo dhaweeyay marka hore Ilaahay baa mahadle marka labaad waxaan u mahadcelinayaa dhammaan hogaankii dhaqanka oo boqor Burhaan horkacay ee Soomaaliyeed ee sida diiran noogu soo dhaweeyay Qardho waxaan u nimid gogasho boqor Burhaan dhigay ummadda Soomaaliyeed ee Geeska Afrika degan inaan taladayada iyo tusaale annaguna qaadano aynu tagno Qardho aynu iswarsan doonaa anigoo ka faa'iideysanaya xilligan waxaan u mahadnaqayaa safar dheer baan soo galay safarka dheer dawlado iyo ashqaas gacan weyn ka geysatay baa jirta waxaan u mahadnaqaynaa maamulka dawladda Soomaaliland dadweynaha reer Burco ganacsatadii salaadiintii nagu soo dhaweysay xagga iyadan waxaan u mahadnaqaynaa sidoo boqorku sheegay garaad jaamac garaad Ismaaciil garaad Abshir Buraale Faysal garaad oo iyagana nagaga hor yimid Laascaanood oo dartay inta halkan uga tageen halka socodka dheer soo galay inay soo dhaweeyaan cid walba ka qayb qaadatay maamulka Puntland saraakiisha ciidankeedina soo dhaweysay dadweynihiina soo dhaweeyay iyagana waan u mahadnaqaynaa Daawud Maxamed Xasan TV-ga caalamiga SBC magaalada Qardho.